hooyo 20,000 oo dollar iyo wiil ay dhashay weyse wiilkiina cudur halis ku dhacay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun hooyo Soomaaliyeed oo ka murugootay wiilkeedii markii ay aragtay muuqaalkan maxaa ku dhacay wiilkan ma dhintay ma nool yahay maxaa keenay ilinta hooyada ka socota ka hor ka hadalka muuqaalka daawada like saaro muuqaalka si uu gaaro saaxiibada kale sida adigoo kale wiilkan hooyadiis ayaa waxbarasho ugu dirsatay dalka Kenya gaar ahaan caasimadda Nairobi hooyada ayaa wiilkeeda ku ogeyd dhigashada jaamacadda Nairobi balse dhacdooyin qarsoon oo goos ayaa wiilkeeda looga soo taminayay hooyada ayaa wiilkeeda bishii u diraysay lacag gaaraysa $700 si uusan u arkin dayac nololeed balse maanta hooyadii ayaa murugo dhex dabaalanaysa wiilka oo la joogay saaxiibadiis ee xaafadda Isliya ayaa la sheegay in ay bareen balwada maadaama wiilka lacag aan xisaab lahayn loo soo dirayay hooyada oo ogaatay wiilkeeda in balwad uu bartay gaar ahaan xashiishka qamriga hooyadii waagi ayaa ku bariyay go'aan adag ayay gaartay hooyadii ayaa u soo duushay dalka Kenya waxayna degtay hotel waxayna wacday wiilkeeda si qurux badan ayaa loo sheekaystay waqti la qaatay oo ma aysan dareysin xaaladda ku sugan yahay balse hooyadii maalmo kadib wiilkeedii waxay ku dhahday hooyana kaxe oo jaamacadda aan aadno si aan u soo fiirino dhibcahaada iyo sidoo kale waxbarashadaada si aan u qiimeeyo wiilkii ayaa arkay hooyadiis maanta inay duulaan ku tahay laakiin wiilkii go'aan degdeg ayuu qaatay oo runta ayuu indhaha ka saaray hooyadiis wuxuuna yiri hooyo dhammaan qarashka aad isoo diraysay waxaan u isticmaali jiray si qaldan oo uga jeeday qarashka balwad ayaan ku isticmaali jiray hooyadii oo waliba ogaalkooda kama weynayn balwada wiilku isticmaalo balse waxbarashadiisii ayay saameyn ku yeelatay balwadii kadib baaritaan dheer oo jirkiisa lagu sameeyay waxa laga helay cudur halis ah allaha naga najeeyay waana AIDS oo lacagta uu ku tuma jiray kalaabyada Nairobi ayuu caan ka ahaa kadibna waxa uu noqday derbi chief ilaa lacagtii waa laga joojiyay hooyadiina qasaaro laba dhinac ah ay isku darsatay niyad jab nololeed ayay qaaday waana mucjiso kale xanuunkeeda wadata hooyadii ayaa kooma u gashay isbitaal ayadoo ku dhacay cudurka dhiikarka balse maalin kasta marka aad la sheekaysato hooyada ilin ayaa ka qubanaysa hooyadii wax lacag ma haysa maanta waa faqiir waxna uga qaban karto wiilkeeda sanado ka hor ayuu qasaariyay wiilka ayaa hooyada u ahaa rajo ay ku taamaysay oo isdheeysay mustaqbalkaada marka aad duqoodo oo shaqay doona noloshaada waxbuu ka bedeli doona balse hooyadii waxay ka dhaxashay ficilkan allow noo hanuuni caruurteena waxa jira caruur fara badan ama dhalinyaro fara badan oo waxbarasho loo diray dibadda ka bacdina la arkay ayagoo aan waxba baranaynin taasna waxa ugu wacan isla xisaabta la'aanta iyo sidoo kale lacagaha xad dhaafka oo loo diraya ardayda inta badan daawade wili dhacdooyinkan oo kale ama arday waxbarasho loo diray waxba aan baran lacagtii ku tuma jiray lacagtii u isticmaali jiray qaab qaldan dhalinyaro ahaan oo waxbarashadii ka saaqiday wili ma aragtay kuma tiga nugula wadaag daawada